السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channelka daawanaysiin waa Leila Axmed official. channelka hadaa ku cusub tahay subscribe, like, share, comment qurux badan ka soo bixi. waa u jeedinay inta bariyaa waxay ka shidan tahay sariirta gabadhayda iyo dhaxbartanka camal kursi la soo qaaday inta la iska soo fariiso daahada gadaashiisa sheekadaada wado ma xun tahay asxaabta ma xuma qof walba horta meeshuu joogo ilaahay ku nabad yeelo salaan sharaf leh ni salaamaya Soomaaliyeed meel walba ay joogto aad baan ni salaamaya te channelku waa channelkiini maxaa sugaysaa subscribe-ta, like-ta, share-ta, comment-iga intaba waxaan ku dhahay dadaalkiina u jeedaa haddana hore le meesha ka wada maasha Allah way soo dhaweyseen haddana waxaan jeclaa dadka cusub oo igu cusub inay saas soo dhaweeyaan daawashada ay daawad iyo waqtiga ay gelisid aad baad ugu mahadsan tahay insha Allah maanta waxaa wadaa sida bariyahan aan social media ku arkayaba gabar yar oo maasha Allah ah iyo wiil yar oo isguursaday oo la leeyahay habartiisa oo aroosay ya Soomaaliya horta dhibaato qosol meesha u fadhiyaa horta gabadha oo joogta dhagaxley oo Soomaaliyeed oo aad u qurux badan oo Ilaahay qurux siiyay midabkana ka wadato Leila Axmed midabkan waa la waayaan ku dhahay ma fahanteen ma sha Allah intaasna waa iska kaftankeeni asxaabta sharafta leh waxaan ii sheegayaa markii horta gabar xoogaa wiil waxyar ka weeyaa sanadkoo camal maxaa u buunaysiin oo balaayada gaaska cabto ugu dhigtiin ha anaga waa tii duq nagu duri jirteene nin duqaas 70 sano jiro hadda gabar wallaahi sheekadaas waa niga soo sheekeynaya ay ii soo sheegtay in gabadhaas 18 jir tahay ayadana ay ninkan 70 jiro ay u guursanayso duruuf aaweed ay tiri cid maxaa la isha asxaabtaada iyo soo gali sheekadaas waxaan rabaa inaan adiga ra'yigaada waa arkay ra'yigayga anigu waa u sheeg already ra'yigaada waa arkay waxaan rabaa ay tiri ayagana ra'yigooda inaan arko insha Allah waqti kale ka soo hadlaya maanta waxaa ka soo hadlaya gabadh walaasheena ah Soomaaliyeed iyo wiilka Soomaaliyeed oo isguursaday oo isjeclaaday way sixirtay way dhali kartaa waa kana alla Soomaali haday rabto inay hawada ku geliso hawada ay ku gelinayaan ku dhahay ya TikTok ay iska soo duubayeen baryahan oo dhan ma TikTok ay loo soo qorin ilaa YouTube-keeda ay loo soo qorin gabadha wax saas wiilka kama weyno nin walba u jeedaa gabadha waa gabar yar oo qurux badan wiilku waa wiil yar oo qurux badan waa dad Soomaaliyeed isguursaday ka qaleel ma adeerayaalo maxaa dhacay idinka oo mashquul زايد مشغولة دريم ويا مشغول كان حاوي مشغول كدافع وقبل مشغول كدافع أو ويلك وحي كوين تاهي مالهن أو أنا وحن لا يابنا هرك الصوماليات بركي جورسدان تطبعات جير جبر يرو سيدي تانجر بركي جورسان ما سسوا قيلسين مركا جبر مركي جورستو ما بقبل نبى أنا جا صومالي حدارنا هاي نين جوينا بدنا جورسنا ويلير بدنا مجورسنا هدير معناها waxsaas hada farqiga u dhaxeynani ma arko wax yar beena gabadha xoogaa ka weyn tahay laakiin weynaan maanta la sheego waawa oo saqir soojis amal ah ma arko aniga saqir soojis ma arko saqir soojis marka ku dhahayn waxa waaye wax badan markay wiilka ka weyn tahay baa la dhihi karaa gabadha waa saqir soojis ilma adeeryaal oo jaceelka soo dhaweeya horta aniga wiilkii gabadha waxa meesha ugu diraayaa waxaan leeyahay abay marto meel walba aad joogno orto waa inay ku qanacsanataa waxay tir dhagaxlayaan joogo ku qanacsanahay ma sha Allah abayo waxa ku leeyahay noloshaada hore u soco cilaankaada $100 ayoobi keenaysidna shaqo wacan aan ku dhahay waxay ku dhaamaan malahan reer Mareykan reer Yurub waxay ku dhaamaan malahan nin walba orodkaas ku jira aniga ii jeed orodkaas ku jira nin walba roor qumaniisa qorto ugu jiro nin walba ordooya yaa laga badina lagu jiraa ma fahantay marka waxaan ku leeyahay baa shaqo wacan Soomaalina waxa waaye waa dadka ka dhalatay amaan kilix ma sugaysid ayna wad helaysaa intaas u marinaya waxaan ku leeyahay mabruuk ilaahay arooskiina aroos qeyr qaba Allah niiga dhigo
mashquulkana waa dadkaadii u adkeyso ha ka daba caytamin cayda iska dhaaf waxaad tiraahdaa timir tukulish gaari waaye qaraar aan dhijiri ma fahantay qaraar nihaayo dheh ma fahantay dadkana guursada gabar hadday tahay waxaad tiraahdaa guurso adna yaa kuu diidan wiilo adna guurso ku dheh waxaa fahantoona already inaa isku qanacsantiina muhiim ah soomaalida waxaa meesha hadda usoo galay oo niga maxaa la sheegaan la sheekaysanaya dadka gabadha soo caynaayo inkastoo gabdhaha Soomaaliyeed ay gabadha la jiraan oo xoogaa dadka oo walaalo horta qurbaha markii la imaado xoogaa stress yaraa jiro ma fahantay dadka stresska ku dhacay waxaan leeyahay gabadha ka daga iska dhaafa waa gabar walaashiina ka qaleeya xoogaa horta waxaa ku leeyahay baayo caydan xoogaa waxay ku tahay soo kicitaan qofka markii la rabo Soomaali waxay tiri lagu xasuusta ka weyn horta markii lagu xamara waa in horta liiska aad ku jirtaa waxaan uu ka saamaano qof walba Soomaaliyeed qofka markii qofka uu joogin oo la xamanaayo waa in la xasuustaa horta koowdii hore kadib la soo hadal qaadaya kasta hadda lagu soo hadal qaadin adiga social media iskeenay TikTok iskeenay waxaad haday laabka looqa kugu jir lahayn laguma keeni lahayn waa in aad adkaysataa mucaaradna waa helaysaa waxaan waa helaysaa dadka mucaaradkana waxaan kale ka qaleeyaa waxaan leeyahay ama toos dagaalka loo qaado markuu duq gabar yar guursada ha la qaado dagaalka oo dagaalka soo u bilaabma ha noqdo aysi ahana dee markaan xoogaa wiilkoo sanadkoo naga yar ama 2 sano aan iska guursana naga wareejiya oo bahasha rafa nagu qaadina ani maanta meesha waxaa iskiga soo galay iska baashaal iska qaraaxa waa iska qosle wallahi videogeeda fiirsaday Esther videogeeda fiirsaday ay leedahay maxaa la dhahay isheeg baay leedahay aniga cilaanan saara dhagaxleeyaan jooga waa ku qanacsanahay dadka ku soo dhahay meesha ay joogto ma qurxoona meesha horta meel walba Photoshop baa lagu sameyn karaa ma fahanti daahaas iga dambeeya waxaan ka dhigi karaa nooc kale gabadha haday ani horta mar walba ani leeyahay ahaanteeda waxa jecelahay meelaha ugu isleeyahay ugu xun tahay inaan soo duubo noloshaada runta lama qariyo noloshaada runta waa inaan ku qanacsanaataa gabadha qaxootiga haday joogtona dadka Mareykan badan aba qaxootiga ka baxay ilma adeeral naga wareejiyay waa is ognahay waa tii qaxootiga la isla joogi jiro oo laga wada baxay xagee ka baxday idinka boqolkiiba kunkiiba 90 abay meesha joogta dhagaxleeya laga wada baxay ma fahantay waxaan ku dhahay bahasha ka wareejiye gabadha ka qaleeya waxaan la yaabanahay abay waxaan ku dhahay wixii la dhihi lahaa ani waxaan dhihi lahaa ayadaa waa tuuturad xoogaa waa nafistay abay horta meesha ku qanacsantay aad baan kaaga ku farxay meel walba aad joogtid waxa fiican inaad ku faraxsan tahay aad ku qanacsan tahay aniga meesha joogo ku qanacsana waan ku faraxsanahay qof walba meesha uu joogo inuu ku faraxsanaado oo ku qanacsanaado ay iska fiican horta aniga adduunka waxa uu necbaa murug ma faad wixii qosol arkaba iska soo duubaya waa iska soo gelinaya 9 waa necbahay ma faadeen laakiin wixii faniya iska arko iska qosol ah hadda waxa waa iska fani iska qosol gabar iyo wiil is guursaday wax weyn oo maanta aan wax ka arko aniga ma ahan xoogaa hadii ka weyn tahayna 2 sano leewa ani moogido ma fahanti 2 sano leewaaye gabadha dhalashadeeda waxaan ku dhahay warqadda dhalashada ma aan soo dhigayna anaga ilaa gabadha xamara ku dhashtay ka keenteene see ahaan waaye ka qaleeya gabadha ka wareejiya waxa fahanteen oo maleena hadii kalena dagaalka toos loo soo qaado oo duq markuu gabar yar guursado waxa lagu qaado dagaalka wiil markii gabar yar markii wiil ka yar ay guursatana ha lagu qaleeyo ilma adeeryaal oo gabadhaas gabar weyn ma ahan gabar saas u weyn ma ahan aniga waan taageersanahay waxa leekiin goobin hore u socda jaceelka amoraatiga ubaxa noloshiina ha noqoto nolol daacad ah ma sha Allah hore u socda baan leeyahay de maxaa sugaysaa is aragta dambe oo xiiso leh insha Allah channelkayga hadda ku cusub tahay subscribe tahay loobinaan ku dhahay like waa wax horumarka aan ku gaaro like tii badiya comment qurux badan iga soo bixiya mar walba commentayaasha qurux badan aan arko aad baan ugu reeqa ugu farxaa waxaan leeyahay idinka unba wax nagu nahay
haddaad soo caydid iyo haddaad soo ammaantid dadka dadkaada lee waay anuku unaka lee waay waxaa fahanteena umalayna marka waxaan leeyahay asxaabta sharafta leh gabadha ha laga wareejiyo ha laga qaleeyo khayr badan mac salaama